munaasibadan oo ahayd mid lagu daahfurayay dhismaha casriga la magac bahay Dahab Tower oo laga dhisi doono magaalada Muqdisho isla markaana ay leedahay shirkadda caalamiga ah ee Dahabshiil Group. Dhismahan oo ah mid casri isla markaana ka koobnaan doona 25 dabaq iyo 7 hoos oo underground ah ayaa waxaa loo dhisi doonaa hab casri ah waana dhismihii ugu horeeyay noociisa ah ee laga hirgeliyay deegaanada ay Soomaalidu degto. Dhismahan ayaa sida la sheegay waxa uu socon doonaa muddo 30 bilood ah. Haddaba munaasabadii daahfurka dhismahaasi Dahab Tower ee casriga ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Muqdisho waxaana ka soo qayb galay saraakiisha ugu sarsareysa Dahabshiil Group oo uu ka mid yahay gudoomiye ku-xigeenka Dahabshiil Group xubnaha ka tirsan golaha wasiirada dowladda federaalka Soomaaliya marti sharaf madax dhaqameedyo aqoon-yahano iyo marti sharaf aad u tiro badan. ugu horreyn halkaasi waxaa ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka Dahabshiil Group Saciid Maxamed Saciid. daartani horta shacabka dadka waxa lagu yaqaanaa in hantidu qaar ilaahay baa qaybiya hantida dad qaar ay ku ururto magaalada inaan laga wada dhiso qof qura wada yeesho waxaa ka haboon in la sheer gareeyo oo dadka ay wada yeeshaan marka daartan dadka ayaa leh dadka ayaa ibsanaya dadka ayaan u keenna waxaanu anigu u soconnaa waxa weeye maadaama nahay shirkadaha ugu waaweyn dalkana dib u dhis uu u baahan yahay inaanu bilowno tartankii dib u dhiska dalka. intaas kadibna halkaasi waxaa ka hadlay gudoomiyaha Soomaaliya ee shirkadda Dahabshiil Group Xasan Cabdi Cawad oo si weyn uga warramay dhismahan isla markaana sheegay ka Dahabshiil ahaan inay mar walba diyaar u yihiin sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen kobaca dhaqaalaha deegaanada ay Soomaalidu degto. runtii daartanu dherer keliya maaha laakiin waxay diraysaa fariinta ay diraysaa waxa weeye wadanka inay ka socoto horumar oo ay ganacsatada iyo dadka Soomaaliyeedna ku daydaan oo tan mid ka dheer ay dhisaan. daartan waxa yeelanaya adiga iyo aniga Dahabshiil waa dhisayaa waana inagu wareejinaya. daartan dhammaanteed waa iib. suuqan waxa laga furayaa suuq u qalma suuqyada Nairobi, Istanbul iyo Dubai. daartan waxa ku baxaya ku dhawaad 20 milyan oo dollar. 20 milyan ee dollar dadka ka shaqeynaya ee dhisaya wixii technicalka culusa oo aynu u adeegsan doono maadaama wali aynu soo kabsanayno dad aqoon u leh si waxaan u suuroobaan mooyaane inta kale waxay noqon doontaa Soomaali. intaas kadibna halkaasi waxaa laga sii daayay program ku saabsan dhismaha Dahab Tower waxaana ka warbixiyay haddaba dhismaha Dahab Tower iyo waxa uu koobsanayo waxtarkiisa Axmed Ciise ka mid ah saraakiisha Dahabshiil Group ee Muqdisho iyo sidoo kale mas'uuliyiinta kala duwan ee Dahabshiil Group. Dahab Tower waxa weeye horta waa fooq wax loo yaqaan mixed use ama waxyaabo kala jaad ku jiraan marka wuxuu ka kooban yahay moolalkii wuxuu ka kooban yahay xafiisyo wuxuu ka kooban yahay apartments meelaha ciyaalka lagu ciyaarsiiyo goobaha cuntada masaajid conference room waa magaalo dhan oo maxay raad daruuraha gashay. Dahab Tower horta sideedaba real estate-ka waa daaqada laga eego horumarka waddan kasta. dhankooda iyaguna halkaasi waxaa ka hadlay marti sharaftii kala duwaneed ee ka soo qayb gashay madashaasi lagu daahfuriyay dhismaha casriga Dahab Tower oo uu ka mid ahaa gudoomiyaha degmada Banaadir iyo sidoo kale gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliya. marka mashruucan iyo runtii iyo maaragtay iyo towerka ay horumarka soo dhaweynayna Allah barakeeyaan leenahay. sharaf ay noo tahay reer Muqdishona sharaf ay u tahay inaan ka soo qayb galno xafladan ay noo sameeyeen Dahabshiil Group ay u hogaaminayo Saciid Maxamed Saciid iyo Xasan iyo teamka la shaqeeya Dahabshiil oo runtii maanta xafladan ay tahay xaflad taariikhi ah in halkan laga dhiso maanta ama laga bilaabo sarta ugu dheer Soomaaliya. runtii waxay ku tusaysaa gurigaasi waa mool waa xafiisyo waana deegaan intiba isugu jira waana sida hadda ka dhawaajiyeen guri oo shakhsi leeyahay ama shirkad leedahay maahine waa guri ganacsi loogu talagalay. sharaf noo ah maantay inaan goobjoog ka nahay idinkala soo qayb galno munaasabadan daahfurka Dahab Tower. Dahab Tower waxay diraysaa fariin ayay u diraysaa Soomaalida ku nool gudaha dalka iyo Soomaalida ku nool dibadda.
intaas kadibna halkaas waxaa ka hadlay wasiiru dowlaha wasaaradda ganacsiga Soomaaliya, wasiirka qorsheynta, wasiirka dastuurka, wasiirka warfaafinta iyo sidoo kale gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka iyo wasiirka cadaaladda. Ilaahay mabruuq waxaad noqoteen shirkadii ugu horeysay garata sida Baakaay iyo dadkii ugu horeeyay halkan ay ka sheegeen inay wadankooda inay maal gashtaan wixii ka dambeeya haddii aan la idmo calaamadan ayaa qaadan doonta koobka oo maanta dadka Soomaaliyeed tusaale u noqon doonta dhiirigelin doonta maalgashiga iyo horumarka waddanka gaari dadkiisiba ay maalgashan waa in cid kale ku soo dhiiran mayso marka horta waxay dawladnimadiina waad u heeliseen dadkiina waad u heeliseen dahabshiil in badan bay ahayd dunta isku xidha Soomaalida ana waxaan xasuustaa bariyaha aan Asia ku noolaa meel Hindiya la yiraahdo oo aan arday ka ahaa iyo aniga iyo ehladeydo afarta qaaradood kala joogna iyada isku kay xidhi jirtay dad aan is arag oo aan fursad ay isku arkaan bay isu helin oo qaarada ku kala nool bay isku xidhaysay marka maanta haddii dhankii dhismahana ay si weyn ugu soo biireen waxaan u malaynayaa qurba joog fara badan bay horta dalka ku soo xidhi doonaan sidii la sheegay abaarmadiye ka dhista meesha la yiraahdo Turkiga meelaha dahabshiil kuma cusba shaqadani garowana ta ugu weyn baa laga dhisay oo dahabshiil baa la ta ugu weyn garowan xamarna waa tan hargeysana 10 magac baa u bixiyeen ta ugu weyn buu ka dhisayo marka horta aad bay shirkadu u dadaalaysaa Dahab Tower oo siday inoo sharaxeen kooxda dahabshiil magaaladan oo hal guri ka kooban wax aliyaala wixii magaalo laga helayay waa la inoo sheegay oo daartaasi waa ka koobanta waxaa la mahadii in maanta Muqdisho aan u joogno iyada oo la daahfuraayo mashruuca dhismaha Dahab Tower oo mashruuc qaran oo wax weyn ku soo kordhinayo bilicda caasimadda Muqdisho wax weyn ka bedelayo muuqaalka maskaxeed ee dalka Soomaaliya laga qabay. gabagabadiina waxaa soo xidhay barnaamijkaasi lagu daahfurayay dhismaha cusub ee Dahab Tower magaalada Muqdisho ay ka hirgelinayaan Dahabshiil Group wasiirka wasaaradda hawlaha guud ee dowladda federaalka Soomaaliya. maanta farxad gaar ah ii tahay ka wasaarad ahaan inaan goobjoog u ahaano daahfurka sarta ugu dheer magaalada Muqdisho ee caasimadda oo ka kooban sida la idin sharxay 25 dabaq oo iskugu jiraan goobo ganacsi xafiisyo iyo meelo deegaan. Abdulqaadir Coday, Bulsha TV, Hargeysa.